بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وبتر عبد القادر أسكر تاني قصة ضيضة. waxaan ku jiray dugsiga sare klaaskii ugu dambeeyay dugsiga sare markii ay ku dhacday xaalad aad u xanuun badan. waxa aan waayay sanad gudihiisa labadeedii waalid oo labadeedii garab ahaa. labadoodu waxaanay ku dhinteen xanuunka loo yaqaan kansarka. waxa aan yimi wadanka Turkiga si aan hooyo ugu raadino xaalad caafimaad. laakiin nasiib xumo bil iyo badh markii aan xaggan joognay waxaan waayay hooyo. muddo 5 bilood kadib waxaan waayay aabo oo isna wadan qurbo ah u tagay xaalad caafimaad. waa laba geeri oo aad u naxdin badan. waxa ay ka tageen hooyo iyo aabo caruur 8 ah oo aan ahay qofkii labaad. anigoo ku jira hayaanka waxbarashada waxa aan waayay labadii garab ee ay garab istaag lahaa. marxalado badan oo isoo wajahay kadib waxa aan awood u yeeshay inaan dugsigii sare dhameeyo. maanta oo aan ku jirno sanadkii 2022 bishii July waxa ka soo wareegtay labada geeri muddo 4 sano iminka ku dhow. 4 sano waxaan ku dadaalay inta ka soo wareegtay in aan jaamacadda heerkii jaamacadeed sii wato. waxa aan iska qoray jaamacad magaalada Ankara, laakiin nasiib darro awgeed duruufta dhaqaale ayay ii saamixi waayay inaan sii wato jaamacadaas. waxaan ka hadhay jaamacadii. dhammaan waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta iga daawanayaan in ay isoo garab istaagaan oo ay noqdaan hooyo iyo aabo, inay garab istaagaan haddii ay noqoto waxbarashadayda oo ay siiyaan chance aan ku sii wato, iyo sidoo kale mas'uuliyadda weyn ee ballaaran ee saaran dhammaan hadday noqoto familygayga ama caruurtii oo aan ahay dadka ugu waaweyn. maanta hamigaygu waxa weeyaan in aan sii wato waxbarashadayda, sidoo kale meel fiican aan ka gaadho si aan u anfaco dhammaan dadkayga iyo dalkaygaba, garabna ugu noqdo caruurtaas agoonta iyo rajada. dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa xaggan iga daawanay meel kasta iga daawanaya in ay garab istaagaan. xaaladayda adag waxa fahmi kara qof labadii waalidba ka baxeen oo walibana inan ah. waxaan rabaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed qofkii garab ii noqon kara inay igala soo xidhiidhaan nambarkayga 0536 023 2000. waa 0536 023 2000. waxaan waqti xaadirkan ku noolahay magaalada Ankara ee wadanka Turkiga. aad baad mahadsantihiin.